nin yahuudi ah ayaa hadda ka hor damcay in uu fidneeyo ummadda muslimiinta ah isla markaana uu shaki geliyo diintooda. waxa uu ka soo tegay halkii uu deganaa, waxa uuna soo aaday magaalo ay degan yihiin dad muslimiin ah. intii uu dhex soo socday ayuu waddada kula kulmay nin xoolo la jira oo muslim ah. markaa ayuu is yidhi, midkan ka bilow baadiyeynta. ninkii muslimka ahaa ayuu u soo dhowaaday isagoo iskaga dhigaya inuu isaguna yahay muslim kale. ninkii ayuu salaamay, kadibna sheeko ayuu u galay. wuxuuna ku yidhi, nin yahow bal u fiirso, qur'aanka barashadiisa waa dhib, maxaa yeelay wuxuu ka kooban yahay aayado badan oo intooda badan soo noqnoqonaya. markaas uma habboona in aayadahaasi laga jaro oo ay soo haraan aayado kooban oo la xifdin karo. ninkii yahuudiga ahaa wuxuu is yidhi, ninkan muslimka ah waad ka adkaatay oo warkaaga ayuu qaadan doonaa, wuuna ku qancay. balse ninkii muslimka ahaa ayaa markiisii warka qaatay, wuxuuna yidhi, u fiirso jirka bini'aadamka, waxaa ku yaal xubno aad u badan oo ay qaarkood yihiin labo, sida indhaha, dhegaha, gacmaha, lugaha, keliyaha iyo samabada. maadaama ay midiiba 2 jeer jirka ku taalo, soo ma habboona in qaarkood la iska jaro si uu jirku nafis uga helo culayskooda. ninkii yahuudiga ahaa ayaa afka taagay oo garan waayey wuxuu ku hadlo, waxaana fajc geliyey jawaabta uu ka helay ninkii muslimka ahaa. waxa uu naftiisii ku yidhi, bal ka waran hal nin oo muslim ah oo weliba xoolo dhaqato ah ayaa sidan kuu ceebeeyey. sidee baan u hortagi karaa culamo muslimiin ah oo ka aqoon badan ninkan? intuu istaagay ayuu goobta iskaga cararay, wuxuuna dib ugu laabtay meeshii uu asalkiisa hore ka yimid, isagoo dulaysan. allaahu akbar! yaa ka guulaysan kara qof alla rumeeyey, allana uu la jirkiisa yahay. allow naga badbaadi dhagarta gaalada.